kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaynu idiin soo gudbinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo lafta garan hor dhigtay laba qodob oo haddii uu sameeyo cadaadiska military markaasi lagaga yareynayo. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa saraakiisha Itoobiyaanka ee ku sugan Baydhabo oo lafta garan ku amray in doorasho degdeg ah uu qabsado xilli muddo cayiman ay u qabteen. Dhinaca kale ciidanka Koonfur Galbeed oo difaacyo adag ka sameystay deegaanka Daynuunay ee duleedka Baydhabo xilli laga cabsi qabo weerar kaga yimaada dhinaca mucaaradka oo isku urursanayay muddooyinkii u dambeeyay degmada Buurhakaba oo 60 kiiloomitir u jirto magaalada Baydhabo. Haddaba intaan guda galin marka koowaad soo dhow muuqaalkan la garee sidoo kalena sii share garee si dad badan xogteena ay u gaarto. Xogo naga soo gaarayo ila lagu kalsoon yahay oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay miiska soo saartay laba qodob oo xal u noqon kara xiisadda military ee ka aloosan Koonfur Galbeed. Qodobadan ayaa looga gol leeyahay in lafta garan looga yareeyo cadaadiska military ee kaga imaanaya dhanka ciidamada ay dowladda geysay magaalada Baydhabo agagaarkeeda iyo guud ahaan deegaano ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dowladda federaalka waxa ay lafta garan hor dhigtay in uu si rasmi ah u aqbalo nidaamka doorasho ee qof iyo cod. Qorshahan ayaa qeexaya in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu tijaabiyo nasiibkiisa tartanka doorashada isagoon adeegsanayn muddo kororsi markaasi aan sharci ahayn. Sidoo kalena haddii uu ku guuleysto doorashadaas dowladda federaalka waxay aqoonsan doontaa sharciyadiisa waxaana laga qaadi doonaa culayska military ee haatan saaran. Dhinaca kale qodobka labaad ee markaasi la sheegay in la soo bandhigay waa mid aad xasaasi u ah kaasoo ah in gabi ahaanba uu ka tanaasulo madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Badalkeeda waxaa loo ballan qaaday abaalmarin dhaqaale oo ballaaran iyo in la damaanad qaado amnigiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed. Tani waa qorshe ay dowladda federaalku ku doonayso in xukunka Baydhabo looga wareejiyo hoggaan la jaan qaadi kara siyaasadda filla Soomaaliya iyadoon dhiig ku daadan. Dhinaca kale waxaa cirkaas ku sii shareeray saameynta saraakiisha Itoobiyaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo. Xogtan ayaa tilmaamayso in saraakiishan ay kulan ay albaabada u xiran yihiin la yeesheen lafta garan iyagoo siiyay amaro markaasi ka soo horjeeda kan Muqdisho. Itoobiya oo muddo dheer xulafo dhow la ahayd lafta garan ayaa haatan u muuqato in ay ka walwalsan tahay in saameyntooda meesha ay ka baxdo haddii mucaaradka dowladda federaalka ay taageerayso in la wareegaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay ku cadaadiyeen lafta garan in uu markaasi degdeg u qabsado doorasho gudaha Baydhabo inta aysan ciidamada kale ku soo dhowaan magaalada. Waxaa la sheegay in loo qabtay muddo cayiman oo markaasi uu ku soo gabagabeeyo hannaanka doorashada si markaasi sharciyad loogu raadiyo sii joogitaankiisa magaalada Baydhabo. Talabadan ayaa loo arkaa mid Itoobiya ay ku doonayso in ay ku adkeyso joogitaankeeda military iyo midka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed iyadoo ka hortagaysa qorshaha ay wadato dowladda dhexe. Dhinaca kale xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan marka loo eego deegaanada Koonfur Galbeed waxaana markaasi haatan la soo warinayaa in ciidamada taabacsan madaxweyne Cabdicasiis lafta garan ay bilaabeen in ay sameystaan difaacyo adag iyo godad military kana sameystaan deegaanka istiraatiijiga ah ee Daynuunay oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo. Haddaba maxay tahay sababta ay ciidankan u sameysanayaan difaacyada adag xilligan? Daynuunay waa iridda laga galo Baydhabo waana halka kaliya ee laga difaaci karo weerar kasta oo kaga yimaada dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo xulafada markaasi mucaaradka ee muddooyinkii u dambeeyay Buurhakaba isku urursanayay. Xogo waxa ay tilmaamayaan aynu helayno in ciidamo ka tirsan mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay isku urursanayaan degmada Buurhakaba. Ujeedka mucaaradka ayaa ah in markaasi culays military ay saaraan lafta garan si uu markaasi ugu hoggaansamo dalabaadka Muqdisho ama uu xafiiska markaasi u baneeyo. Labada dhinacba waxay Daynuunay in waaxigeeda geeyeen gaadiidka dagaalka iyo hub culus taasoo keentay in dadka rayidka ee ku nool aagaasi ay bilaabaan in markaasi ay isaga barakacaan. ugu dambeyntii madaxweyne lafta garan waxa haatan uu taagan yahay isgoys aad u adag xilli dowladda federaalka Soomaaliya cadaadis xooggan ay ku hayso sidoo kalena dhinaca kale Itoobiyana ay ku hayso cadaadis ah in doorasho degdeg ah u qabsado si uu u sii haysto xukunka. Haddii wada hadallada siyaasadeed ay guuldareystaan Daynuunay waxay noqon kartaa goob uu ka qarxa dagaal aad u culus kaasoo saameyn ku yeelan kara guud ahaan xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxay kula tahay adiga? Lafta garan ma waxa uu qaadan doonaa dalabka dowladda mise furinta Daynuunay ayuu markaasi ku sii sugnaan doonaa?